بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaasha qiimaha qayaalow sida caado nooga barateen maanta way bisha August 25 tahay 2014 waxaan waraysi ka qaadaynaa laba aqoonyahana oo bisha ciise oo Xasan Sheer oo jooga Sweden oo nin aqoonyahan oo siyaasi weyna iyo Farax Xaaji Ciise oo jooga Mareykanka waxa waraysiyadu maanta ay ku saabsan yihiin waddanka Djibouti sidii horumar ama wixii dib jira ama layso dhibaatadii ka dhacday electionkii waddanka Djibouti ay isku khilaafeen ESN iyo AMB iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo xaq darro maalka Djibouti ku tasarrufa meela aan loo baahnay ku baxsha meeshii loo baahnaana ku soo bixin waayey oo maanta canaan dheer loo jeedinayo taas oo aan ognahay wax badanna ay Djibouti warkayn. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhegeystayaasha ku soo dhawaada Farax iyo Xasan aad baan idin soo dhawaynaa. Salaamu calaykum. Assalaamu calaykum. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. waxaan halkan ka hadlaynaa aan ku bilownay Xasan waxaan su'aal ku kooban yihiin madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu ku dhawaaqay markii uu Mareykanka imanayay inuu furayo wada hadal oo xisbiyada arrintii ka kacday shaqadii mudaharaadadii iyo rabshadii ka kacday electionkii Djibouti ka dhacay maxaad kala socotaa halkuuna marayaa heshiiskii uu ku dhawaaqay uu madaxweynuhu Ismaaciil Geedina uu qaabilay markii gabadhiisa la doonayay uu arrintaa bilaabga wax ma ka hirgaleen mise weli waxba mulla seegi baa la wadaa bal warbixin dhegeystayaasha dhagaala Xasan bal naga sii. Assalaamu calaykum. waxa weeyaan arrintaasi waxa jirta ay Soomaalidu markay mahmaahayaan dayalku ma mahmaahaane mahmaatigaada jirta doofaar ma daahiro dabeecadiina ma daayo doofaarabidkii ma daahiro dabeecadiina ma daayo marka ninka Ismaaciil Cumar ka sugaya inuu nabad uu keeno ama wada hadal uu furo oo dawladda ku daro waxaanan isagu ogolayn ama xisbi mabda ahaan ka duwan iyo fikir ku wata mabda ahaan ka duwan ku isagu wato way adag tahay sababtoo ah waan ognahay horta isagu sidoo meesha ku yimiday Ismaaciil Cumar xirfad iyo doorasho meesha kuma imanin dagaal kuma imanin oday adeerkii Allah naxariisto oday Xasan Gule adeerkii baa meeshan kaga tagay maxay ummadoo dhan u burburiyay isagana maxay soo saaray oo soo dhisay halkaana dhigay waa tiitiray islaantii maxay xisbiga ku jiraysay beerde muxuu ahaa adeer araa buuran ku boodbood inta iga hadhayna wixii harayna burburi waa tiitiriye waxa loo dhigay meesha waa intii hadhay odayga ka tagay Xasan Guleed inuu baabi'iyo intii cagta uu mariyay ma intii hambadii hadhay isna inta cagta sii marinaya marka nin meeshan u fuulay sidoo u baabi'in lahaa ummadda reer Djibouti iyo waddanka reer Djibouti baan ka sugayaa inuu kursi la fariisto oo wada hadal galno oo dooro maxay ahayd ku heshiino inaan maamulka iyo malaha waddankan wada qaybsano aad bay u adag tahay waxa taana ka marakaca nuwaagi ay maxay ahayd fruit ku samaysmeen xisbiga fruit la yiraahdo maxay dagaalan ee qoriga u qaatay ee xafarta ku koobnaa waagaasi waa kiri waan la heshiinaynaa waxa la fariistay bisel magaalada ku taale abcal la yiraahdo waa la kala qaybay raggii intii daashay ee doonaysay inay iska soo gasho oo baa la heshiiyay adduunkiina waxa la yiri waa kamaan la heshiinay intii kalena waa la iyadoo dabada waa qorin baa dabada laga daba maray marka waxa weeyaan muxuu ahaa iminka tiim buu eegtay tan abcaun buu eegtay Faransiiska ayaa maxay ahayd arrintani iminka Djibouti markay murugsan tahay oo arrintii inay murugsan tahay arkay ee dhibaato ay ka soo socoto oo wadankii uu ku socdo inuu Rwanda noqdo oo farxa la isa saaro oo ummadii faraha isku tagaan inuu arkay ayuu Faransiiskii orday meelo badan buu adduunka ku soo gudbay Faransiisku sida wadanka Rwanda Ivory Coast wadana badan halkaasi faraha ku gudbteen marka wuxuu jeclaaday tan intayna kala daadan ay nasiib ka dhigin inuu sarako ka gilgisho safiir arinta khibrad u leh oo Ivory Coast soo joogay buu keenay Djibouti ama Cote d'Ivoire loo oranayay buu keenay Djibouti si uu arintaas u galo
marka waxa dhacay ninkaasi wuxuu ka codsaday sida ka soo baxay dawladda Faransiiska in Ismaaciil Cumar una meesha masiibo ka abuurin meeshana waxay dan u tahay 80 malyan ee Itoobiya ku nool bay Djibouti muhiim u tahay hadday dab qabsado Itoobiya dhan baa soo hulay marka waxay tahay muhiim u tahay maxay qarbigan wadanadan qarbiga ee afka Faransiiska lagu dhaw Occident Togo iyo muhiim u tahay sababta meeshan waxa mara gaadiid aad u badan baa mara badda oo xagga petrolka iyo dhaqaalaha adduunka mara marka waxa uu amar lagu siiyay amarkana ku Faransiisku ka soo go'aymayna waa ku qarbiyo oo ka soo go'ay inuu Ismaaciil Cumar meesha nabad ka keeno inuu furfuro bahasha una la heshiiyay mucaaradka maxay yeelay dalabkii la soo mariyay safaaradda Faransiiska way gaashiisay dawladda Djibouti xagga mucaaradka ragga la sheegaysay waxa kamid ah madaxa UN tabaa kamid ah Ahmed Yusuf markay tahay mucaaradka iyo siyaasadda markay tahay arrimaha bulshada iyo maxay shacbiga tahayna waxa laga sheegaystay aadan cabdu ninka la yiraahdo saandikada madaxa kaaba kala sheegaysata safaaraddu Ismaaciil Cumar wuxuu ka hadlay maxay hayday VOA uu ka hadlay wuxuu yiri annaga cid dibadda looga talin maayo annagu waan tashanaa geed baan tagnaa madaxayga ku dhameynaa hadalkaasna hore uu yiri waagi abca shirka lagu qabtay uu khaayimayo maxay fruitka kala khaayimayo hadalka hore uu yiri maantana tiin buu yiri wax kama duwan hadalku waa kiin waa ka orday Ismaaciil geedi u yeeray ee yiri waan ku aamin adu maxay leeyahay heshiino aan iscalo la xaalanno wixii horena uu dhamaaday iminkana aan heshiino nabad baan samaynaynaa sida lagu soo gaaraysana hadallada uu kala hadlay Ismaaciil geedi waxa kamid ah sidan lagu soo gaaraysa ee maxay leeyahay warar hoos ahaaneed rag jamhuuriyadda kamid ah oo kacasbigan kacaanka Ismaaciil Cumar kula jiro kamid ah waa in aan ka helnay inuu Ismaaciil geedi yiri war waxaan la duldigayaa canfare aan weydaarana walaal inaadeero waa ka kuusaayo aan weydaarana yiri markaas waxa weeyaan meeshaasi wax maxay leeyahay waa hadal ka soo socda ma jiro Ismaaciil Cumar inuu Ismaaciil geedi uu og yahay oo la khaayimay inuu raali ka yahay inuu Ismaaciil Cumar madda afgambiyo khaayimo ma garanayna nabada wali midkay tahay Ismaaciil geedi baan ka sugaynaa taa wuxuu ku dhameeyay iyo wuxuu ilaahdo wuxuu la yiri maalintii dawladdu khudbadeynayay bisha 8 bishan 8 wuxuu la yiri war xayaabley markuu ka hadlay wuxuu yiri aamiya waxna ummadda meesha oo naga soo saaraynaa waan rajaynaynaa anagu waanan maxay ahayd waanan ku ducaynaynaa inuu khayr ka soo baxo laakiin waxaan hubo nin la garan garan maayo waxaan irbada muday waxa lagu muday Ismaaciil Cumar iyo sidii isku bedeleen farmad daahiro tan aan uga malaynay wax ka soo socdaan ummadoodanna bisha dhamaadkeega la sugaya bisha dhamaadkeega dii wax cad la waayo oo iska caddahay inuu arrintu tahay shirkii abca inay tahay waxa weeyaan si fiican baad u dhigtay iminka bal farax baan dhinac kale uga wareegi farax markaad sidaa u eegtay adigana qaybta saami qaybsiga iyo dhaqaalaha Djibouti soo gala sidee kula tahay iyo dadka Djibouti oo dhakhtar la'aan tacliin la'aan wadadii oo biyihii qurmay marayaan iyo inta milyan wadanka soo galaysa bal farax oo xaggaana bal waan soo noqon xasan bal adiguna maxaad ka odhani bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad ma santahay xaaji Cumar waan salaamayaa shaqaalaha xariir andagaala news kulli haddii aan maaragtay salaanta usii dhaafo muxuu ahaa su-aashaada sida jirtay aan wada ognahay kulley haddii aan realityga ka hadlayno waxaan soo bandhigaynaa ama aan cabiraynaa waxa dalka iyo dadka haysta waxa muuqda iyo waxa muuqan maaragtay aan ognahay sidaa u socdo tirada dadka Djibouti ku nool ee Djiboutiyaanka caadiga ah kolka la qiyaaso waxa ay tahay tiradoodu 800,000 oo qof dhaqaalaha soo gala iyo dadku sidaan ognahay way kala badan yihiin dalka jamhuuriyadda Djibouti haddii dhaqaalihiisa si fiican loo maareyn lahaa dadkuna waxay heli lahaayeen benefit gaara wadankuna green buu wada noqon lahaa maanta Djibouti oo dhan qariirada Djibouti inta ay ka kooban tahay maanta waxay noqon lahayd dhul
dalxiiska adduun weynaha u yimaado oo touristii fara badan u yimaadeen noqon lahayd waayo waddan yar oo dad yar oo dhaqaalo badan iyaa meesha nooga muuqata hase yeeshee waa ay kala dhantaalan tahay oo dhibaatada taagani waxay tahay corruption tii ugu weyneyd iyaa dalka ka taagan matalan kolkaan soo qaadana caafimaadka qofka xanuunsanaya ama gabadha maanta uurka leh ee dhalaysa waa inay lacag dhiibato oo 5,000 faran oo faranka Djibouti ay isku diiwaan geliso haddii kale ma galayso albaabka lagamana galinayo hadduu qofku xanuunsan yahay waa inuu $5,000 faran bixiyo oo la eego oo isku diiwaan geliyo kadibna la yiraahdo baxo dawada iibso warqad loo qoro la yiraahdo dawada iibso dulmi weyn iyo dhibaato weyn baa taagan dalka markaad aragto dekedaha iyo wadankii magaalada Djibouti dhexdeeda waa anaga og dhibaatadu joogta haysata 50 yari hadduu yimaado waa kan dab qabsanaya waa jiingado gaboobay iyo looxaan iyo karatoon la isku yeebanayo dadkii baahidu ay dhulka la sii galayso waa la karaa Djibouti maanta inta ay leeg tahay inaa qandaraas lagu qaato shirkado waaweyn oo dhismaha ku shaqo leh inta loogu yeero shirkad Turkiya oo kale Djibouti oo dhan inay hal sano magaalada Djibouti aan aragnay magaalada madaxda ee diimisku sida u dhex bugleynayo ee kaneecadu ma dartay dadka saa ugu cunayso hal kabani oo Turkiya iyaa ku filan oo loogu yeero oo loo shubo wixiisa oo hal sano ku dhiso ilaahay bay ka sugaysaa Djibouti taa caafimaadka 800,000 ee Djiboutiyaanki xoolaha inta leegiyo maaliyadda inta leegiyo Djibouti soo gasho way ka caafimaad laayihiin oo way ka dhaqaale laayihiin xagga caafimaadka way faraxo iyar bisig aan ayada oo aan wada ognahay inay dawladda Djibouti Soomaaliya u dirto raashin dawo iyo maaragtay qalab iyo baabuur Soomaaliya soo dhaaf Somaliland iyo Puntland ay u rartay dawooyin mar duufaan baa ka dhacay Puntland lugayana ka dhacay oo 5,000 neef ayaa dadkii halka deganayay beesha Ismaaciil markii ka dhashay waliba laftoodii ay 5,000 neef kaga dhimatay wax gargaar iyo wax raashin midna looma geyn Puntland diyaarada loo raray Somaliland waxaan ognahay dhaqaalaha ina lagu baxsho dawladda Djibouti waa dadkii xaq u lahaa inta ciidamada ajnabiga oo wadanka imanay oo Mareykanka ugu horeeyay maaliyadda ka soo galaysa ayaa magaalada balbala qurxin lahayd hadday wada tahay hadday biyo tahay hadday kooraan tahay marka bal waxaad imika aad u macnaysaa ujeedada madaxweynaha isagoo inta maal dibad ku bixinaya dadkiisina ka aradaya waayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay xaaji waxaad weydiisay su-aal fiican meesheediina haysata mid iyaa laga sheegaa dadka Djiboutiyaanka ama qaybahay kasoo kala jeedaan siiba ciisaha iyo canfurta dhaqankooda kolka ciisaha la isticaayeynayo Soomaalida kale waxay yidhaahdaan ciisuhu baryada ama sadaqada sida loo sadaqadaysto dhaqankoogu uma saamaxo oo dhaqankooga sharaftiisa ay ku dhintaan oo shaqo kuma laha waa run war meesha ciise ma joogaa bal haddii baahi baa jirtee bal haddaad ciise meesha u joogo waxaan u baahanahay bal wax inaad igu aad maadalta taaratiin buu odhanayaa ninka ciise hadduu meel majlis ku soo baxo oo baahan yahayna oo maaragtay dhibaato ay hayso war ciise ma nihiin anagu dad Soomaali kala nahay bal hoo waxan baan yaan ku helay inaad ciise ima gabini iska haysta hadaan ciise ahayn buu odhanayaa bay yiraahdeen waana wax jira marka mid baa
iyaa aada iyo aad u lugoysay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti midaas oo ah waxaa la yidhaahdaa ciise iyo nin waalanba waa loo qoslaa iyay soomaalida kale wax kaga qaataan siiba isaaq iyo gadabursiga ammaan aan jirinoo kolka laga dhaqaaqo wixiina laga qaato dib loo caayayo iyaa la tusaa taabaa lugoysa oo aw isku baaraa kuna godladaayo dee godlashadiisu waa ammaan baa wax aw mooday taana ciisuhu uma dhalan ee ciisuhu wuxuu xaqu leeyahay waa inuu helo ama aw waayo oo laga maroorsado ciisuhu waa taa maanta waxaan ognahay 7 sano dhakhtar baa xariiro laga dhisayaa dhakhtarkaas waxaa lagu magacaabay uwaas mustafe uu og yahay oo kama qarsoona qurbaha iyo gudaba waa loo xaytay oo sidii dadka bulshada ahayd ruuxa ku nool wax loola qaban lahaa loo xaytay waxaa dhacday in isagoo arkaya si kastana wax loo weydiiyey inuu wax ka geysto waxaa jirta wuu booday hargeysuu ka dhisayaa maxay ahayd dhaktaro jaamacado gabiiley buu ka dhisayaa jaamacad iyo dhakhtarku uu ku baxayo 30 milyan oo dollar waana xoolihii Jabuuti lacagtii Jabuuti dadkii lahaana cunaha la hayaa taasina waxay keentay in uu ka sii boodo oo la yidhaahdo hargeysa iyay ka jabtay bridge-kii dhex marayay isagana laga dhisay 15 milyan oo dollar dhakhtarkana 1 milyan iyaa ka badan haddii uu maaragtay magaca ku dhinto oo yidhaahdo bal dadkan waxa la qabatay waxaa lala rafanayaa oo qurba joogta iyo dadka maaragtay maalqabeennadii ay la rafanayaan si dadka gobolka jooga wax loola qaban lahaa wuu og yahay wuuna ka warqabaa meel inuu caawiyo ama uu yidhaahdo bal maaragtay waxa lala qabto waa ugu guuldarrays taa markaan ka imano tii dalkii uu xukumayay ama soo dhaadhac kolkaad eegto dhibaatada taagan horta dhibaato badan baa dadka soo martay haysata biyo la-aan koronto la-aan caafimaad la-aan waa loo samrayaa ilaahay baase u maqan waxaanse kula telin lahayn madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti meel kasta oo jinsiyadiisu ay maaragtay joogto meeshuu doonay ha ahaadaan inuu ka geysto intuu nool yahay si taariikhi ay uga hadho ama la yidhaahdo madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti baa halkaa noo dhisay madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti baa halkaa wax nooga qabtay ceelashaabuu qoday iskuulladaabuu dhisay jaamacaddaasuu dhisay waxaasuu noo qabtay lagama hayo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti meel uu ka dhisay jaamacad meel uu ka dhisay dhakhtar meel uu ka dhisay waddo lagu xasuusto oo ugu qabtay maaragtay dadkiisa aada iyo aad iyay nasiib darro u tahay liidarkaagii oo aan waxa weeyaan aan halkaa kaayar kale Ismaaciil Margeelle waan ognahay wuxuu ku dhashay magaalada Aysha gurigii uu ku dhashay waxa la yidhi uu dudumay oo dib uma soo daymoon awowgii baana dhistay aabihii mid dhisayba awowgiina odayadii tareenka wax kala dhisaya ka shaqayn jiray buu ahaa betel Allah yarhamu marka Aysha ayuu ku dhashay dirdhaban uu ku koray iska dhaaf Somaliland dee reerka ayuu ka soo jeedaa maayna dhulkii uu ku koray uu ku dhashay wax ku bartay ayada qudhadeeda wax qabad dib uma soo daymo baa la yidhaa maxaad kala socotaa marka inuu wax ka qaban doono inta u hadhay haddeed inta hore u joogay uma joogi doonaan umalayno hadduu mawdku daayana dida'daaban daynay laakiin wax qabad iyo xasuus dariiq uu dhiso sidaad carab ku dhifatay
ciise weli uu sugayaa oo kama quusan because maalkii ciise ama maalkii waddanka jabuutiba ayuu maanta gacanta ku hayaa marka bal waad soo gabagabayni waxaan ku wareejinaynaa xasan yaa la yidhaha waa yahay xaaji cumar waan soo gabagabayn kolley madaxweynaha aan ugu soo gabagabaynayaa inuu ammaana isagoo isku hayo cambaarayn iyo cayna au isagoo isku hayo waayo ilaahay baa ka dhigay mas-uulkii ugu weynaa ciisaha maanta kolka la yidhaahdo waa madaxweyne beleed oo qaran hase yeeshee waa inuu madaxweyne qaran yahay waan ognahay waanan karsannahay laakiin waxaa la yidhi boqor ma eexdo bahdina ma mooga waxaan ku canaananaynaa waxa weeye horumar la-aan iyuu ka dhigay dadkii au maaragtay ilaahay ka dheliyey iyo dhulkii ilaahay u dheliyey midna meel uu ku dhashay iyo meel uu u dhashay iyo cid uu ka dhashay saddexdaaba maanta waxay ka joogaan guuldaro maanta wax lagu xasuusto ama wax lagu ammaano inaanu lahayn iyaa taariikhdu ay qortay haddii inta u hadhay uu wax ka bedelayo allahu aclam ma garanayno hase yeeshee wixii hore waxaan u joognaa oonu soo joognay inuuna taariikh ku lahayn saddexdaa aan soo sheegay waxaan maanta ku dardaarayaa ama aan maaragtay ugu baaqayaa dalka uu hogaaminayo iyo dadka uu hogaaminayo iyo inta usoo raacaysa inuu il gaara ku eego oo maaragtay ammaantan iyo soomaalidan maaragtay shacabka u tumaysa ee maaragtay ku faa'iidaysanaysa au maaragtay wax la qabto soomaali waa maaragtay inuu wax la qabto maxaasidayno laakiin taluu ku leeyahay kuma laha dadka masaakiinta waxooga inuu maaragtay au meel walba maaragtay au ku finaskareeyo war waxaan u baahannahay oo aan ugu baaqaynaa madaxweynaha anuu soo gabagabeynaya istaba qabo carruurtaada si loogu xasuusto laguna soo dhaweeyo waxa aad u qabato dadka aad ka soo jeed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayay kaasi farax buaf xasanow waxaad soo gabagabeynaysaa bal siyaasadda madaxweyne ismaaciil cumar geelle maanta way fashilan tahay tii gudaha iyo tii dabadiiba siyaasadda keliya laatiin odhan karna uu ku nakaxay ama ammaan uu ku leeyahay waa soomaaliya marka soomaaliyana dee wax weyn uu isbedel ka sameeyey ma jirte hormood buu yacna noqday soo dhaweyntii nabadda oo caarka ahayd marka dardaarankii iyo siyaasadda halkii toosnayd bal maxay kula tahay kusoo gabagabee halkaas waa qalad halkaana waa sax mudada madaxweyne isdaba qabo baa la joogay bal adiguna kusoo xidh farax waxa weeyaan aan halkii kasii wadne arrinta aana taaban waxa weeyaan mudada madaxweyne ismaaciil cumar geelle waxaan maaha canaan ammaan badan baa jeceshaa la yidhi laakiin annagu kuma ammaanayno waan ku canaananaynaa dameerka waxaa la yidhaha faraska marka la wado usha waxa loogu dhiftaa inuu orodka badiyo hadagaala nuis mar kasta xaqa ayay doonaysaa dulumkana way diidan tahay waxaan aad iyo aad kugu canaananaynaa inaad wax ka bedisho siyaasadaada way fashilantay jabuuti xisbiyaad samaysay xisbiyadiina haddana uma ogoyd xaqii doorashaa la galay dadkii doorashadii way ka cabanayaan oo waxbaa la dulmaa laleeyahay tii la helay bal tan baarlamanka ee dulunku ka dhacay iska badaa tii la helay ee maayarka ahayd ayaad meeshii haddana iyadiina ku galgalatay ilaahay ha laga boqo xaqa dadka ha laga joogsado dulunka amayn dhaar baan dardaarmaynaa bal dardaarankii u horreeyey faraxo waan kusoo xidhaynaa assalaamu calaykum waaya xaaji cumar mar labaad haddii aan kusoo noqdo anigoo soo sheegay sidaan horey usoo sheegay horta ciise hadduu ammaan ka sugayo ama uu ka heli lahaa horta hadduu ammaan ka heli lahaa wax badan buu iyuu soo joogay kana waayey dabeecaba uma leh dhaqanna uma leh inay ammaan ay ammaanaan
qofku ilaahay baa ammaanay markuu ilaahay xil u dhiibay haye hadduu xilka ilaahay u dhiibay uu ku guuldarayso qofkaas waa ku caayan yahay taladaas oo taladaas waxa weeye mid uu ku caayan yahay qofkaas taladii qofkaasi au maadaragtay hayey ee u hayey beesha ama dawladda ama dalka waxay noqotay mid cadilantay oo sidaan ognahay uu ku guuldaraystay in lagu ammaano haddii inta kuu hadhay aada ammaan sugayso ood ammaan ka sugayso dadkii kuugu xigay ee ahaa halkaad ka soo jeedo horta kama helaysa ha sugin adaa is ammaani oo wixii inta aada nooshahay aada la qabanayso la qaban laakiin midiyayna ku hogin ama ay ku hodin ama aanay inta noloshaada ka hadhay aanay ku seejinin ha ka sugin adalka yar kaa dhexgale madaxweynaha dad badan baa la taliya oo la jooga dadkaasi gebi reerka uu ka hiisana way ku jiraan afar way ku jiraan ummado kale way ku jiraan ma inuu ogeyn baad u malaynaysaa waxaan dhibta meesha taal mise indhow xidhanya say kula tahay arrinta waxaa la leeyahay dadku hadday nolol helaan ama aada maadaragtay dhaqaalo siiso nin bergey hadhow aduu kugu soo socdaa baa laleeyahay waxaa lagula talinayaa war ninka gaajaysani hadhow intuu dhib iyo broblem kugu keeni lahaa iska dhergi halkii lagula talin lahaa ayaa lagula talinayaa dadka waa inaad gaajo ku disho waa inaad xidhxidho waa inaad layso saddexdaa baa lagula talinayaa laakiin waxaanu sheegaynaa intaa taas inay tala ahayn oo ay tala qaldan tahay tala la-aan tahay adigana siyaasadaada lagu baabi'inayo oo la taliyayaashaadu ay kula goynayaan iyaan kuu sheegaynaa haddaanad aanay kuu khirsanayna waa inaad iminka u fiirsataa oo arrinkaasi inuu jiro adayga og waana waxaad ku shaqayso dhegeystayaasha qiimaha qayalo waxa aan halkan ka hadlaynay arrintaas oo ahayd arrimaha Djibouti sidii aan xal bal loo raadin lahaa iyo waxa qaldamay loo toosin lahaa waxaan aad iyo aad aan u faraynaa adagaala news dhegeystayaasha waxaan leenahay bal arrinta kasoo faallooda kasoo hadla waxaanan dawladda Djibouti ku waaninaynaa aan mar labada mar saddexaad leenahay waar wixii aad qaban lahayd baad gaftay bal intaad aanad dhiman iska gaar oo degdeg u qabo taariikhduna waa ku qori wax xun iyo wax salinta waa kugu qori waa ka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaan dib u kulmi doono nooli kulanta waxaan waraysi ka qaadaynana farax xajayse iyo xasan sheer oo kala jooga Switzerland iyo Maraykan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu